السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جانال كمركز السوداء واضح أدي هذا مهتنتين ما أنت وايسنين وأنا لحظة بيش أفراد أبريل سنة كلابا كن إيو لحية لباتنك مقال كانوا حربا إن نذكر وذاقه دولة إيران أو سعد أديدي شان يتبنكي قضب حبة جوجينتا أو دولة أمريكانكو أي أسوى بندكتي وحين تري إن لو هنجبو إسلامر كان وذا هذا لنا أو كسعدو ما أهن مد أن يلين قد كاسي هري أيا لبجر naloo ka qaniinay laakiin mar saddexaad mana la ka qaniinayo ayaa dowladda Iran ay tiri madaxweyne Trump wasiirkiisa gaashaandhigga ama dagaalka Pete Hegseth taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Dan Kane iyo waliba taliyaha sirdoonka John Ratcliffe oo shir jaraa'id ku qabtay aqalka cad maanta waxayna ka warbixiyeen qaabkii askarigii habeen hore ay u soo badbaadiyeen ciidamada gaarka ah ee Mareykanka iyadoo inta badan laakiin ay faan u badnayd madaxweyne Trump ayaa si cad u sheegay in habeen dambe 12 saqda dhexe haddii dowladda Iran aysan heshiis gaarin in goobahooda korontada iyo sidoo kalena buundooyinkooda 4 saac gudahood dhulka ay la sami doonaan qorshahaasina uu yahay mid diyaarsan arrintaasi oo madaxweyne Trump uusan ka gabanaynin amaba uusan ka xisheenaynin isagoo og waliba dambiye dagaal in ay tahay arrintaasina waan idin la socodsiinayaa balse marka hore soo dhawaad inuu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iran oo la yiraahdo Ismaaciil Pachai ayaa waxa uu si cad u diiday heshiiskii xabad joojinta ah oo dowladda Mareykanku ay soo bandhigtay Mareykankii ayaa hadda xabad joojin dalbanaya waxaana dhaxdhaxaadintan waday wadamada Masar Turkiga iyo waliba Pakistan waxa la doonayay in 45 maalmood dagaalka la hakiyo oo xabad joojin la sameeyo isla markaana la furo marinka Hormuz arrintaasi waxaa shir jaraa'id ka qabtay afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran in la yiraahdo Ismaaciil Pachai waxaana uu xaqiijiyay in ay gabi ahaanba dowladda Iran ay diideyso 15 qodob ee xabad joojinta ah ee dowladda Mareykanku ay u gudbisay wadamada dhaxdhaxaadinta sameynaya waxaana uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan la aqbali karin dhankeenana waan gudbinay ayuu yiri innagana dalabkeena laakiin waxa uu xaqiijiyay in ciidamada uu amaanay ciidamada Iran ee difaacaya danta wadankooda iyo waliba dadkooda isagoo xaqiijiyay in Mareykanka iyo Israa'iil waxyaabaha ay wadaan ay yihiin dambiye dagaal iyo waliba kuwa ka dhan ah bini'aadanimada waxaana uu xaqiijiyay in ay wadaan in ay diiwaan galiyaan wax kasta oo xadgudub ah oo labadaasi dowladood ay ka geystaan gudaha wadanka Iran haddii mustaqbalka lala xisaabtamayo waxa uu xaqiijiyay in marnababa aysan aqbalaynin shuruudahan 15 ah ee dowladda Mareykanku ay soo bandhigtay oo ay doonayso in xabad joojin lagu sameeyo waxaana xaqiijiyay ma ahan kuwa u cuntamaya dowladda Iran waxaana uu xaqiijiyay in ay gabi ahaanba ay arrintaasi ku wargeliyeen wadamada dhaxdhaxaadinta sameynaya haddaba waa kan isaga oo ka hadlayay arrintaasi isla markaana sheegayayba inaysan aqbalaynin shuruudahaasi 15 ah oo dowladda Mareykanku ay soo bandhigtay We have discovered that the plan is clear. The mediators have mentioned a project or a plan that is consisting of 15 items through Pakistan and some other countries. And at that time, we had confirmed that we consider these items not logic at all, and it has nothing to do with the logic. And we will never accept these 15 items, these 15 American conditions. And according to our interests, we adopt the necessary decisions. We have submitted some visions and some ideas, and I want to make everything clear. Clearly, we talk about our rightful requests. When there is a plan or a project, we also have our own requests regarding that plan or that project. And no one has the right to consider it a plan for the ceasefire. So, when this project or this plan has been submitted, we have sent our reply to this
matter, and we will announce that clearly and publicly to the Iranian people. ku hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Iran Ismail Bachai waxa uu sheegay sidoo kale inay marnaba aysan macquul ahayn in hanjabaado dowladda Iran loo hanjabo dhinacna wada hadal ayaan kula jirnaa la yiraahdo. Wuxuu yiri labadaasi isma barbar socon karaan. Waxa uu xaqiijiyay in hanjabaadaha ka soo yeeraya madaxweynaha Mareykanka ee ah in la burburinayo ayuu yiri goobaha korontada iyo waliba buundooyinka wadankaasi oo ah waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha dadka ku nool wadankaasi Iran, in ay marnaba aysan macquul ahayn in wada hadal aan la yeelano ayuu yiri wadan maalin kasta noo hanjabaya. Waxa uu xaqiijiyay sidoo kale arrintaasi khibrado qaraar inay horay uga dhaxleen. Waxaan ognahay labadii mar oo Iran la weeraray dagaalkan hadda socdo iyo kii 12 maalmoodba in uu wada hadal socday, isagoo wada hadalkii socdana Iran la weeraray. Marka waxa uu yiri khibradahaasi qaraar ayaan horay uga dhaxalnay, sidaas darteed waxa uu sheegay in mar saddexaad godkaasi aan la ka qaniinaynin. Waxa uu yiri dhinac difaac ayaan uga jirnaa oo waan istifaacaynaa maadaama duulaankan Iran iyo Mareykanku ay nagu soo qaadeen, dhinaca kalena wixii macquul ah waan aqbalaynaa, laakiin wuxuu yiri in naloo hanjabo nala yiraahdo wada hadal ayaan idila leenahay, labadaas wuxuu yiri marnaba ma ahan kuwa isbarbar socon karo. Haddaba isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yiri To God, the talks cannot go parallel with the threats. They cannot threaten us, and they cannot ask us to sit on the table of negotiations. We have experiences, bitter experiences before with the United States of America, and our achievements of today, the achievement of Iran have cost us an expensive price. The United States and the Israeli entity are increasing their crimes against humanity, and the Iranian Foreign Ministry, being one of the main sovereign institutions of the Iranian regime, is making everything documented in order to reply and respond to all the claims and the threats of both countries. Regarding the threats, matter of fact, undoubtedly, I can say that the mere talk about the threats is a crime in itself, is a war crime in itself, and these crimes are there, and we cannot hear from time to time that the United States of America is threatening Iran, threatening the infrastructure of Iran, and at the same time, and within the tasks that are to be done, they are giving the Israeli entity the green light to hit our military locations. dhinaca kale madaxweyne Trump waxaan ognahay in shalay hanjabaado kala duwan oo xitaa kuwa qaarkood caay iyo aflagaado ay la socoto in barihiisa bulshada uu ku soo qorayay gaar ahaan bartiisa True Socialka. Maanta waxaa shir jaraa'id si wada jir u qabtay madaxweyne Trump oo aqalka cad ay ku qabteen wasiirkiisa dagaalka Pete Hegseth, taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Dan Kane iyo taliyaha sirdoonka ee ninka la yiraahdo John Ratcliffe. Waxaa shirka jaraa'id u badnaa mid ay Mareykanku is amaanayaan awoodeena ciidan, askarigeennii waan soo badbaadsanay, qof nooga dhintay ma jiro, walow aan ognahay in diyaarado ilaa 2 diyaaradooda intii howlgalkan badbaadinta uu socday haddana laga badinayo 3 ilaa 4 la gaarsiinayo in Mareykanku uu ka soo tagay. 2 warna waa jiraan, Mareykankuna mid ayuu sheegayaa, Iranna mid ayay sheegaysaa. Waxay leeyihiin diyaaradahan cilad ayaa ku timid, Mareykanku waa uu kici waayay kadibna inaga ayaa gubnay si dowladda Iran aysan uga faa'iideysan. Laakiin Iran waxa ay leedahay inaga ayaa soo rinay oo diyaaradahan xitaa xabado ayaa lagu arkayay, sidoo kalena waxaa la leeyahay mayd ayaa laga helay. Arrintaasi weli lama hubo oo hadda Iranna ma aysan cadeyn, Mareykankuna waxa uu leeyahay ciidamadeennii waan soo badbaadsanay. Haddaba dagaalka Pete Hegseth ayaa waxa uu sheegay in askarigan jimcihii diyaaradiisu ay dhacday pilotkan, isla markaana sabtidii oo idil god uu ku jiray, xaaladiisana ay la socdeen. Marka waxa uu yiri markii u horeysay uu nala soo hadlo
waxaa jirta kulley qaab communication ama fariin qoraaleed ha ahaato kulley telephone ma ahan waxa uu yiri erayo fudud isla markaana aad u awood badan oo ah ilaah waa uu wanaagsan yahay waa sida wasiirka gaashaandhigga ama dagaalku uu yiri markaas waxa uu yiri sabtidii oo idil markuu godkaasi ku jiray axadii ayaan soo badbaadinay waliba hal qof oo ka tirsan ciidamada Mareykankana lagama soo tagin hal qof oo nooga dhintayna ma jiro arintaasina waxa uu yiri nasiib ma ahan ee waa awoodda iyo tababarka ay ciidamada Mareykanku ay leeyihiin to activate his emergency transponder. His first message was simple. dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa la weydiiyay su'aal ahayd hanjabaadiisii uu barihiisa bulshada ku soo qorayay ilaa iyo shalay oo ahayd kama dambeyn habeen dambe haddii Iiraan aysan heshiis gaarin in goobaha korontada iyo sidoo kale dhammaanba buundooyinka uu burburinayo madaxweyne Trump waxa uu yiri waan ka dhabaynaynaa arrintaasi waxaana jira yiri qorshe nooga degan in haddii Iiraan habeen dambe 12 saqda dhexe aysan heshiis ogolaanin in aan burburino si waliba isku mid ah oo hal mar ah buundooyinka iyo sidoo kalena goobaha korontada arrintaasi waa dambiye dagaal in infrastructure-ka ama waxyaabaha nolosha asaasiga u ah ee wadamada xilliga dagaalka lagu jiro la bartilmaameysado laakiin Trump kama xishoonayo xitaa kama gambanayo in uu yiraahdo waan burburinaynaa oo qorshe ayaa nooga degan marka waxa uu yiri hada buundadii 2 maalin ka hor uu soo gelinaya barihiisa bulshada waxa uu sheegay in aan u dhaweyn ayuu yiri inaan wada hadal gaarno laakiin Witkoff iyo Kushner iyo JD Vance oo madaxweyne ku xigeenka ayaa waxay ugu soo wargeliyeen oo yiri in Iiraan heshiiskii ay diiday 45 daqiiqo kadib waxaan amray in buundadaasi la burburiyo 10 daqiiqo kadibna waa la burburiyay ayuu yiri marka waxa uu yiri Iiraan hadda wali wadankoodu wali waa uu is haystaa laakiin waxa uu yiri haddii aan burburino waxa uu yiri 20 sano ama ka badan ayay ku qaadan doontaa sanado badan isla markaana waxa uu sheegay inay hadda tahay inay heshiiskaasi ay qaataan madaxweyne Trump hadalkiisa ma uusan ka muuqan xitaa in uu ka gambanayo ama uu ka xishoonayo waxyaabaha uu ku hadlayo oo si toos ah u leeyahay qorshe ayaa nooga degan haddii habeen dambe saqda dhexe 12 saqda dhexe ay gaari waayaan ama ay diidaan inay heshiis qaataan in aan howlgalladaasi aan fulino marka bal madaxweyne Trump oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri markii shirka jaraa'id uu qabtay kadib su'aalihii la weydiiyay ayay qayb ka ahayd sidan ayuu Very little is off. We have a plan because of the power of our military where every bridge aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan marka la kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo